السلام عليكم soo dhawaada asxaabta maanta waxaan ka hadlaynaa wax la great vessels of the heart okay great vessels of the heart macnaheedu waxa waaye waa fasaliyada ama waxyaabaha waraabiya wadnaha kuwa ugu waaweyn oo wadnaha ka imaado ayaan ka hadli doonaa okay great vessels of the heart ka imaado ayaa ciwaankeenu yahay so aan bilaabano waxaa lahay great vessels of the heart function to carry blood to and from the heart and it pumps liquid large within the middle mediastinum waxaa lagu dhahay great vessels of the heart-ga ayaga inta badan dhiiga ay qaadaan okay dhiiga ay qaadaan bamba ay sameeyaan dhiiga ay jirka geeyaan so waxaa la marka inta badan waxay ka yimaadaan wadnaha waxayna ku yaalaan inta badan middle mediastinum okay maxaa kamid ah marka waxaa kamid ah ko aorta pulmonary artery and pulmonary vein okay pulmonary artery iyo pulmonary vein way kala duwan yihiin saas oo ogaada pulmonary artery and pulmonary vein okay sidoo kale superior vena cava inferior vena cava afartan ayaa isku yiraahdaa great vessels of the heart okay so marka aorta ayaga hore aorta waa kan ugu muhiimsan oo waxa waaye maxaa la yiraahdaa dhiiga bambe okay pulmonary artery iyo pulmonary vein ayagana waa pulmonary artery markii la joogo in heart markii la joogo hadalkan so important waaye heart markii la joogo pulmonary artery wuxuu u shaqeeyaa as a vein ahaan u shaqeeyaa dhiig deoxygenated blood-ka ayuu qaadaa oo arki doonaa laakiin markii la joogo heart-ga pulmonary vein okay pulmonary vein wuxuu u shaqeeyaa as a pulmonary artery ahaan ayuu u shaqeeyaa dhiiga oxygenate-ka ayuu qaadaa so haddii hadhow lagu dhaho marka pulmonary artery iyo pulmonary vein maxay qaadaan waa inaad ogaa kartaa okay waxaa kusoo xig marka superior vena cava iyo inferior vena cava waan qanaa superior vena cava waxay dhiiga ka keentaa upper qaybta kore ee jirka ay dhiiga ka keentaa waxay ku shubtaa right atriumka halka inferior vena cava ay ka keento dhiiga qaybta dambe ee jirka ayna keento right atriumka ku shubtaa ayadan okay great vessels of the heart waxa ugu horeeya aorta okay waana kan ugu weyn waaye aorta waxaa lahay waa largest artery in the body so important waa artery ugu weyn oo qofka bini'aadanka uu leeyahay waa aorta okay wuxuuna qaadaa oxygenated blood wuxuuna ka bambayaa by the left side of the heart okay left side of the heart ayuuna ka bambayaa dhiiga wuxuuna geeyaa rest of the body markii dhiiga laga soo saaro kaardiyaha markay soo tuuraan aorta ayaa lagu soo shubi doonaa aorta markii lagu shubo kadib aorta asigana wuxuu geyn doonaa jirka oo idil ayuu geyn doonaa waana largest artery okay aorta ayaa la sii faahfaahinayaa aorta waxa la wuxuu ka yimaado waxa la yiraahdaa aortic orifice okay sorry at the base of the left ventricle okay wuxuu ka yimaado meel la yiraahdo aortic orifice oo ku taal base of the left ventricle okay with envelope ayadoo marka la marayo aortic valve waana fancy segment is known as ascending aorta asiga marka wuxuu leeyahay aorta wuxuu leeyahay la yiraahdo ascending aorta descending aorta okay ascending macnaheedu waxa waaye waa wax kor aadayo so waxaa lagu dhahay marka the first segment it is first segment qaybta ugu horeyso aorta waxaa loo yaqaanaa as ascending aorta loo yaqaanaa okay qayb kor aadayso waa macnaha heart markuu kasoo baxo ascending aorta ayuu sameeyaa then wuxuu sameeyaa lies down within the pericardium wuxuu kusoo maxaa la yiraahdaa kusoo wareegaya marka pericardiumka from in branch of markaas kadibna waxaa ka baxo waxaa la yiraahdo branches of coronary arteries okay coronary arteries waa artery waraabi wadnaha waraabi waaye waana important way waa ka hadli doonaa ayaga qaybta kale oo secondary continuous segment of the aorta from which branch major arteries in the head and neck kadibna aorta waxaa ka baxo major arteries ka baxo aorta oo waraabi headka neega iyo upper limbska okay hadalkaas so important way aorta maxaa ka baxo waxaa ka baxo branches badan ka baxo oo intee waraabiyaan brancheskaas ka baxo aorta waxay waraabiyaan headka neega iyo upper limbka ay waraabiyaan so maxaa kamid ah marka hadalka hadda so important waaye waxaan sheegnay aorta inuu sameynayo waxa la yiraahdo ascending aorta waxaa kaloo sheegnay inay branches ka baxaan saddex branch ugu muhiimsan okay branch kood waxa la yiraahdaa bronchocephalic trunk okay branch labaad waxa la yiraahdaa left common carotid artery branch saddexaad waxa la yiraahdaa left subclavian artery okay intaanan idin sharxin kor hadalkan akhrino waxaa la after arch of the aorta arch of aorta kadib the aorta then becomes descending aorta which continues down through the diaphragm to the abdomen waxaa lagu dhahay diaphragm markuu sameeyo ascending markuu sameeyo kadib wuxuu soo sameyn doonaa waxa la yiraahdo ugu dambeyn wuxuu sameyn doonaa descending okay mar haddii wax shay kor ay aadaan waa inay haddana hoos usoo laabtaan okay arch ayuu sameyn doonaa marka arch leexasho waa macnaha okay
urge ayuu sameyn doonaa, then wuxuu sameyn doonaa descending hoos ayuu soo aadi doonaa, wuxuuna gaari doonaa diaphragmka ilaa iyo abdomen, okay, ilaa abdomenka ayuu soo gaari doonaa aorta. Okay, waan fiirina marka bronchocephalic trunk iyo left common carotid artery iyo left subclavian artery waa saddex branch oo ka baxaan aortaha ayay ka baxaan. Okay, sawir ahaan inuu ku jiraan fila idin tuso. Okay, this is not, yes, this exactly waa kana fiiri ila fiiri haka marka, this is the aorta, wuxuu kasoo baxay wuu soo socday, wuxuu sameeyay waxa la yiraahdo ascending aorta, this is the ascending aorta. Okay, ascending aorta kadib wuxuu sameeyay arch, kadib wuxuu sameeyay descending aorta, hoos ayuu soo aaday. Okay, waxaa ka baxay marka saddex branch ka baxay ujeedin fiiri, this one and this one and this one. kan maxaa loo yaqaanaa branchiga, waxaa loo yaqaanaa subclavian artery. Okay, subclavian artery. branchiga maxaa loo yaqaanaa common carotid artery ayaa loo yaqaanaa. Okay, common carotid artery, common carotid artery intuu waraabiyaa headka ayuu waraabi doonaa, wuxuu isku qaybi doonaa hadhow internal carotid artery iyo external carotid artery. Okay, mid wuxuu waraabi doonaa facialka iyo externalka ayuu waraabi doonaa, midna gudaha ayuu waraabi doonaa internal carotid artery ayaa la yiraahdaa. Okay, maskaxda gudaha ayuu waraabi doonaa, wuxuu sameyn doonaa circle of Willis, waa bara doonaa insha Allah. Subclavian artery intee waraabisaa ayadana, waxay waraabisaa upper limbiga. Okay, ayada inta badan waraabiso. Bronchocephalic marka kusoo haray, bronchocephaligan marka saa ujeediin fiiri hagan, bronchocephaliga markuu soo baxo laba isku qaybinaa, wuxuu isku qaybinaa subclavian artery oo imaanayo oo soo aada upper limbka waraabinayo, iyo wuxuu isku qaybinaa common carotid artery oo adhow internal external isku qaybi doono. Okay, hadalka muhiim waaye. Bronchocephalic trunkiga, bronchocephalic trunkiga wuxuu isku qaybinaa common carotid artery iyo wuxuu isku qaybinaa subclavian artery. Okay, laakiin waa markii dhankaan la joogo, dhankaan markii la joogana caadi ay soo baxayaan. Marka subclavian artery aorto kasoo go-a, common carotid artery sidoo kale, laakiin markii dhankaan la joogo waa bronchocephaliga soo baxayo, then bronchocephaliga wuxuu isku qaybinaa common carotid artery iyo wuxuu isku qaybinaa subclavian artery. Okay, this is right and this is the left. Mana right markii la joogo bronchocephaliga sameysmaayo, ma jiro waxa la dhaho right subclavian artery and right maxaa la yiraahdaa common carotid artery, ma jiro. Okay, bronchocephalic trunkia jiro, kaasa wuxuu u qaybinaa subclavian artery iyo wuxuu u qaybinaa maxaa la yiraahdaa internal carotid common carotid artery. Halka left markii la joogo oo subclavianka aorta kasoo go-ayo, common carotid artery sidoo kale. Okay, okay, this is the pulmonary veins. Okay, pulmonary vein. Okay, yes, okay, pulmonary artery ku marayna. Pulmonary artery fiiri so important waa daa'im xadina aniga pulmonary artery-ga artery haddaan maqshid waxa kugu soo dhacay waxa dhigi doontaa Dr. Jaabir maxaa ku dhacay asiga. Aniga waxaan qaadanaa artery wuxuu qaadaa oxygenated blood, jirku waraabiyaa artery uu vein ku bedelo maxaa waaye hadhiin. Okay, hay ila yaabin aniga meeshaan fiiri pulmonary artery wuxuu ka yimaadaa the oxygenated blood ayuu helaa asiga from right ventricle and deliver to lung. Okay, wuxuu ka qaadaa right ventricle ku ka qaadaa, wuxuuna geeyaa lungs ayuu geeyaa for gas exchange to take place, si u dhacda gas exchange. Okay, so pulmonary artery wuxuu qaadaa the oxygenated blood from right ventricle and deliver to lung, waana kan kaliya ee jirka bini'aadamka ku yaal. Okay, oo pulmonary artery oo u shaqeynaya as a pulmonary vein. Okay, waxaa la asiga wuxuu ka bilaabmaa pulmonary trunk. Okay, and one thick and short vessels separated from right ventricle by pulmonary valve. Okay, waxaa ka sooco right ventricle-ka pulmonary valve, wuxuuna ku yaalaa anterior and medial to right atrium, waxay wadaagaan sharing common layer of pericardium within the ascending aorta. It continues upward and loops of asoo sawir arki doona insha Allah. Okay, pulmonary vein hadda u maano pulmonary vein waxaan dhaanay fiiri hadda maxay pulmonary vein wuxuu shaqeynaa as a pulmonary artery. Okay, kan waxaa dhaanay oxygenated blood ayuu wuxuu ka heli doonaa right atriumka, wuxuuna geey doonaa lungs ayuu deyn doonaa si gas exchange u dhacdo. Okay, pulmonary artery. Pulmonary vein maxaa waaye wuxuu heli doonaa oxygenated blood, wuxuu ka qaadi doonaa lungska, wuxuuna geey doonaa left side of the heart to be pumped back around the body, si jirka loogu bambeeyo hadhow. Okay, so pulmonary vein wuxuu heli doonaa oxygenated blood, wuxuu ka qaadi doonaa lungiga, wuxuu geey doonaa left side of the heart. Okay, waxaa jirta marka 4 pulmonary veins aa jiro
oo afar pulmonary vein ahaa jiro waa arki doonaa. One is superior waa and one is inferior fi jacala. One mid waa superior oo ah xag mid kore, midna waa mid hoose. Dayrta waxay garaan pericardium-ka ay garaan si ugu shubmadaan, okay, to drain into the superior left atrium. Okay, the posterior cells. Oblique pericardium cells can be found within the pericardium between the left and okay waa kana sawirkan aan fiirino marka waa iska hadal. Okay, waxa ugu muhiimsan aan rabnaa inaan ka hadalno waqti badan ma haysan. And this is the aorta. This is the aorta. This is the left pulmonary artery. Okay, waxaa jiro right pulmonary artery waa kana jidi right pulmonary artery. Pulmonary artery muxuu qaadaa waa ogtihiin. Okay, left pulmonary artery. sidoo kale waxaa kasoo sheekeynay waxa la yiraahdo pulmonary trunk artery. Okay, waxaa kasoo sheekeynay sidoo kale exactly ha waxaa kasoo sheekeynay pulmonary right pulmonary vein. Okay, waxaa kasoo sheekeynay right pulmonary vein oo oxygenated blood qaado iyo left pulmonary vein oo ayadana waa kana. Okay, and right pulmonary artery waa kana, left pulmonary artery waa kana. Okay, okay, this is the aorta. This is the superior vena cava. Okay, xagga kore dhiig markii ka imaada inta ku shuban doonaan right atrium ka lagu shubi doonaa. waa arki doonaa inferior vena cava xagga hoose keenta dhiigga lagu shubi doonaa right atrium. So waa kana marka right pulmonary veins. Okay, waa lagu guduudiyay xataa si ay u ogaatid inay qaadaan oxygenated blood. Right pulmonary artery waa kana waxay qaadaan oxygenated blood from right waxay qaadaan from right atrium to the lungs. Okay, this is the left pulmonary veins and left pulmonary artery. Okay, and waxaan oo haray hadda marka waxaa kasoo sheekeynay pulmonary artery, pulmonary vein, aorta. Superior vena cava maxay qaadaa? waxay qaadaa deoxygenated blood ay waxay ka keentaa from upper body of the body. Okay, superior to diaphragm macnaha wixii superior ka ah diaphragmka ka koreeyo ay waxay ka keentaa dhiigga ay kasoo celisaa. Okay, including excluding waxaa lagu dhahay markii laga reebo lungs iyo heartiga inta kale ay kasoo qaadaa dhiigga waxay kusoo shubtaa right atrium, delivered to the right atrium. Okay, superior vena cava. Inferior and inferior. Inta inferior gain waxaa la it forms margin of the bronchocephalic vein traveling inferiorly through the thoracic region until drain into the superior portion of the right atrium at the level of the macnaha waxaa la waxay suubi doontaa waxa loo bronchocephalic veins. Okay, markii soo qaado waxaa lagu shubi doonaa bronchocephalic veins kadib waxaa la keeni doonaa ugu dambeyntii right portion of the superior portion of the right atrium ayaa lagu shubi doonaa at the level of the third rib ayaa lagu shubi doonaa. Okay, at the level of the third rib. Then inferior vena cava. Inferior vena cava ay qaadaa deoxygenated blood ay qaadaa from the lower limb. Okay, so important waa jirka dhanka hoose ay dhiig kasoo celisaa ayada. All structures inferior to diaphragm wixii diaphragm ka hooseeyo dhan ay keentaa and it delivered back into the heart. waxay kusoo celisaa heartiga khaasatan right heartiga. And initially formed in the pelvis by the common iliac vein joining together. Okay, ayada pelviska kusubsataa ayada isku tagaaya and common iliac veins. Okay, together. Then ayada waxay travel kusoo sameysaa abdominka ay soo aadaa then collecting blood from hepatic waxay dhiig kasoo qaadaa hepatiga, lumbarka, gonadalka, renalka, phrenic nerveska. Okay, the inferior vena cava waxay soo gudubtaa through diaphragm waxay soo gashaa pericardium at the level of T8. Okay, ugu dambeyntii waxay soo gashaa pericardium waxayna ku shubmataa inferior portion of the right atrium. Okay, halka kii hore superior vena cava intuu ku shubmadaa wuxuu ku shubmadaa superior portion of the right atrium halka inferior vena cava ay ku shubmato dhiiga inferior portion of the right atrium. Okay, hadalka muhiim waa marka inaa ila fahantiin. Okay, waxay ku shubmataa inferior portion of the right atrium. So sawirka this is the firma. Superior vena cava hour. Superior vena cava waa kana. Okay, wixii kor ka imaado oo diaphragm ka koreeya markii laga reebo heart iyo lungi waxay ku shubmadaan superior vena cava. waxay ku shubtaa ayadana superior portion of the right atrium ay ku shubtaa dhiigga ay soo celisay. Inferior vena cava dhiigga markii jirka waxay kasoo celisaa wixii diaphragm ka hooseeyo dhan waxay dhiig kasoo qaadaa hepatiga, renalka, phrenic nerviga meelo badan ayay kasoo qaadaa waxayna ku shubtaa dhiigga ugu dambeyntii inferior portion of the right atrium. Okay, okay, this is the ascending aorta. Ascending aorta markuu soo baxo wuxuu soo aadi doonaa ilaa iyo abdominka ayuu aadaa. Okay, ilaa iyo abdominka ayuu aadaa. So that is the importance of great vessels of the heart. waxa ugu miisan aragnaa ka hadalna waxay ahayd vessels of the heart waana afar aan nahnay.
waxaan dhaanay waxa la yiraahdo waxa uu waray aorta oo ah largest artery of the body. waxaa ku xigay pulmonary artery, pulmonary vein ayagana waa ka hadalnay, iyo superior vena cava, inferior vena cava. Okay, so hadda kadib insha allah waxaan rajeynaa great vessels of the heart hadaa maqashin inaa hore ka dhihi doontid afartaas iyo meelahay ka imaadaan inta badan. Okay, next lecture insha allah.